maogtahay inay jiraan AI iska caawin kara inaad si dhaqso leh u qorto codeskaaga iyo kuwa kuu diyaarin kara sawirro iyo muuqaallo aad cajiib ah run u eeg. Muuqaalkiina maanta waxaan kaga hadlaynaa qaar ka mid ah toolska AI-ga ee muhiimka tahay inaad ogaatay. Waxaan sidoo kale muuqaalkiina usoo qaadanaynaa courses aad ka baran karto waxyaabo aad u badan oo ku saabsan artificial intelligence-ga iyo machine learning-ka. sideen hore ugu saabsanay muuqaaladeennii hore, artificial intelligence-gu waa meel aad si weyn ugu koraysa kuna socota xawaare sare. haddaynu yar dib u eegno 2023 sidan ayuu waxaa muuqaal uu AI samayn karaayay. waa mid cid kasta ay garan karto inuusan run ahayn xilligaasna loo arkay iska kaftan, balse wax ka yar sanad AI-gu waxa uu awood yeeshay inuu soo saari karo muuqaallo noocaani ah. waxaanay noqotay arrin cajiib ah. keliya taa fiirin kan hadda la yaabka leh, ka fikir siduu u ekaan karo 1 ama 2 sano oo kale kadib. waa cajiib. inkastoo inay sawirro AI weli si public ah loo adeegsan karin, haddana tani waxay tusaysaa waxa soo socda. waxaa sidoo kale cajiib ah toolka lagu magacaabo Flux One oo isna soo saari kara sawirro iyo muuqaallo aad u tayo sareeya. way badan yihiin toolska soo saari kara sawirro aad u tayo sareeya, balse weli way kooban yihiin kuwa soo saari kara videoska. dhammaantoodna waxay tusayaan xawaaraha uu AI ku socdo. dhanka kale, artificial intelligence-gu waxaa si weyn uga horumaray dhanka qoritaanka codeskaaga. inkastoo uusan weli gaarin heer uu bedeli karo programming-ka, haddana waxaa jira tools si weyn kaaga caawin kara inaad si dhaqso leh u qorto project-yada. toolskan waxaa ka mid ah ChatGPT oo hore u soo marnay. weliba markaad adeegsanayso qaybta lagu magacaabo Explore GPTs, halkaas ood ka heli karto GPTs khaas u ah qoritaanka codeska sida web development-ga, Python, Android development iyo kuwa kale. waxaa sidoo kale jira qayb lagu magacaabo Codex oo ay develop garaysay isla shirkadda OpenAI, kaasi oo aad ugu horumarsan dhanka qoritaanka codeska. inkastoo uusan weli free ahayn, haddana waxay taasi muujinaysaa isbeddelo soo socda. toolska iyagu free-ga ah ee codinka ka caawin kara waxaa ka mid ah Tab9 oo isna free ah laguna xidhan karo IDE-ga isticmaalayso sida VS Code, Baycam iyo kuwa la midka ahba. waxaana ku samaynayaa auto completion ama inuu soo qiyaasi karo waxaas leedahay qor, sidaasina uu kusoo bandhigi karo waxaas lahayd qor. intaas dan ka nimaadno qaar ka mid ah toolska AI-ga, waxaa dhan yaro qodob muhiim ah in lala socdo isbeddelada artificial intelligence-ga. artificial intelligence-gu ma ahan trending oo muddo yar kadib iskama baaba'ayo, laakiinse sida muuqata artificial intelligence-gu oo mustaqbalka, weliba mustaqbalka dhow. waxaadna barataa sidaad AI-ga uga adeegsan lahayd faa'iidadaada ee ugu isticmaali lahayd. ma ahan keliya ChatGPT, balse waxaa jira qaybo kale oo aad ballaaran. daraasee oo baro. waxaa sidoo kale wax badan ka faa'iidi kartaa courseska free-ga ah ee aad ku baranayso artificial intelligence-ga. courseskaas waxaa ka mid ah courseska lagu magacaabo Generative AI ee bixiyso shirkadda Microsoft. linkigiisu waxuu yaalaa description-ka. waxaa sidoo kale courseska ugu fiican ka mid ah courseska Introduction to AI oo ay shirkadda IBM si free ah uga baran karto. isna waxuu yaalaa description-ka. haddaynu artificial intelligence-ga ka fiirino dhanka amniga, AI-ga iyo shirkadaha lahiba waxay ururiyaan xogo iyo macluumaad aad u tiro badan, kuwaasi oo haddii si khaldan loo adeegsado noqon kara cyber threat. taasina si aad uga taxadirto ha gelin macluumaadkaaga shakhsiga, hana la wadaagin wax kasta. ugu dambayn, muuqaalkeena maanta intaas ayuu ka egyahay. artificial intelligence-gu waa mustaqbalka ee ka faa'iidayso oo baro sidad u adeegsan lahayd. wassalaamu calaykum.